أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة كسو دو channel aqoon official hadaa channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee si asxaab badan u gaaro maanta waxaan qaadan doonaa maadada historyga fasalka form 4 imtixaanka 2022 la galay ayaan xalin doonaa part 1 ee circle-ka waxaan ku bilaabi doonaa su-aasheeni koowaad aas-aasihii dowladii Cusmaaniyiinta waxa uu ahaa ba Maxamed Faatix ta Cusmaan Ardagol ja muraadkii koowaad xa muraadkii labaad jawaabta saxda ayaan ka dooranayna waa xarafka ta Cusmaan Ardagol ayaan ka dooranaynaa oo ah xarafka ta ku xusan nambarka labaad markii ay fiday baaxadda dowladda Cusmaaniyiinta waxaa maamul ahaan loo qaybiyey 23 gobol 28 gobol 32 gobol 34 waxaa ka dooranaynaa waa 32 gobol su-aasha saddexaad sanadkii 1514 Cusmaaniyiintu waxa ay dagaalkii Jaldiraan ku jabiyeen dowladdii waxay ku jabiyeen marka xarafka aan ka dooranayno waa xarafka ba ayaan ka dooranaynaa waa Safawiyiinta ayaan ka dooranaynaa waxaa u gudbaynaa su-aasheenii ku xigta ee afraad ee imtixaanka dowladda 2022 maadada taariikhda ayaan qaadanaynaa su-aasha afraad caqabadaha ugu weyn ee haystay ciidanka Cusmaaniyiinta waxay ahayd ba maraakiibta joogta degedda Bostar sidii loogu wareejin lahaa degedda geeska dahabiga jawaabta saxda ayaan ka dooranayno waa xarafka ba ayaan ka dooranaynaa oo ah maraakiibta joogta degedda Bostar sidii loogu wareejin lahaa degedda geeska dahabiga waa xarafka saxda ah ee ba waxaa u gudbaynaa nambarka shanaad isirka Cusmaaniyiinta waxa uu ka soo jeedaa qabiilooyinka ba Hindida ta Turkiga ja Carabta xa Faransiiska Farisiinta marka jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ta oo ah Turkida nambarkeeni lixaad su-aasha circle-ka ayaa ku jirnaa waxaan qaadan doonaa nambar 6 Sadrul Acdam waxaa lagu magacaabi jiray xilligii Cusmaaniyiinta ja oo ah xarafka saxda ah wasiirka koowaad ayay noo noqonaysaa waa xarafka ja ku xusan nambarka 7 sanadkii 1302 magaalada Bursa waa magaalo madaxa ka dhigay ba Cusmaaniyiinta Saqafiyiinta Saljuuqiyiinta Hindida jawaabta saxda ah ayaan ka dooranayna waxay noo noqonaysaa xarafka ba ayay noo noqonaysaa Cusmaaniyiinta ayaan ka dooranaynaa oo midda saxda ah waxaa u gudbaynaa nambarka 8 ayaa u gudbaynaa sanadkii 1897 ururka Sahnuuniyadda caalamiga ah wuxuu shirweynihiisii koowaad ku qabtay magaalada ba waxaan haysanaa Paris ta Roma ja Berlin xa Basel jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka xa Basel ayay noo noqonaysaa nambarka 9 dadkii ugu horeeyay ee soo dega dhulka Falastiin waxay ahaayeen xarafka aan ka dooranayno oo midda saxda ah waxay noo noqonaysaa marka xarafka ja ayaan ka dooranaynaa oo ah Kancaaniyiinta ayaan ka dooranaynaa oo xarafka ja ah waa dadkii ugu horeeyay ee soo dega dhulka Falastiin waxaa u gudbaynaa nambarkeeni ku xiga ee 10aad ayaa u gudbaynaa heshiiskii muslimiintu la galeen reer Baytul Maqdis waxaa lagu magacaabaa ballanqaadkii ba Abubakar ta Cumar ja Cusmaan xa Cali jawaabta saxda ayaan ka dooranayno waa xarafka ta oo ah Cumar ayaan ka dooranaynaa oo xarafka ta ku xusan waxaa u gudbaynaa nambarkeeni ku xiga 11aad gobolka Kashmir
waxaa islaamku soo gaaray sanadkii 900 hijriga, waxaana soo gaarsiiyey ba Xajaaj bin Yuusuf, ta Maxamed bin Qaasim, ja Muusa iyo xa Daariq. Jawaabta saxda waxay noo noqonaysaa Maxamed bin Qaasim oo xarafka ta ah. Nambarka ku xiga 12aad, Rohingya waa dad Muslim ah oo ku dhex nool wadanka Myanmar ayaan ka dooranaynaa oo xarafka ja ah. Waxaa u gudbaynaa nambarka ku xiga, su-aasha 13aad ayaa u gudbaynaa. Su-aasha 13aad, xanaankii dowladnimo gaarsiinta uu hogaaminayay Talyaanigu wuxuu ku koonfurta Soomaaliya ka dhaqan geliyay sanadkii. Ba iyo ta iyo ja iyo xa ayaan haysanaa. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka xa, 1945 ayaan ka dooranaynaa. Su-aasha ku xigta 14aad, calanka Soomaaliya waxaa hindisay Maxamed Cawaale Liibaan. Nambarka ku xiga 15aad ayaa u gudbaynaa. Cadowgu bir maaha ee buriya oo ilaashada ciidiina iyo calankiina. Ereyadaas waxaa inta aanu dhiman kula dardaarmay saaxiibadiis halyeey Ba oo ah Xalane ayaa jawaabta saxda ah ayay noo noqonaysaa oo xarafka ba ku xusan Xalane. Su-aasha ku xigta 16aad ayaan u gudbaynaa. Gobollada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxa ay midoobeen 1dii Luulyo sanadkii. Ba 1961, ta 1962, ja 1960, xa 1963. Haddaba jawaabta aan ka dooranayno midda saxda ah waa 1960. Waxaa u gudbaynaa su-aasha ku xigta 17aad. Soomaaligii ugu horeeyay ee Talyaanigu u magacaabay gudoomiye degmo wuxuu ahaa Sheekh Munyi ayuu ahaa oo loo magacaabay gudoomiyaha degmada Dinsoor oo xarafka ku xusan xarafka xa ah ee Dinsoor ayaa loo magacaabay. Su-aasha ku xigta 18aad ayaan u gudbaynaa. Su-aasha 18aad, go-aankii la magacbaxay Baqshadii Gaduudan waxaa 60 ka mid ah howlwadeennada heerka koowaad ee shaqada ugu ceyriyay Ra'iisul Wasaare. Ba Cabdirashiid, ta Cabdirasaaq, ja Cigaal, xa Cumar Carte. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ta oo ah Cabdirasaaq. Su-aasha ku xigta 19aad, golihii sare ee kacaanku waxa uu ka koobnaa 20 sarkaal, ta 25 sarkaal, 18 sarkaal, 23 sarkaal. Hadda jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ta, 25 sarkaal. Waxaa u gudbaynaa su-aasha ugu dambeysa part 1 ee sirkalka. Qaab dagaalkii Cumar Mukhtaar Liibiya adeegsan jiray waxa uu ahaa. Ba ku dhufo oo ka dhaqaaq, dagaal qabow, iska hor imaad, nooc kale. Jawaabta saxda aan ka dooranayno waxay noqonaysaa xarafka ba, ku dhufo oo ka dhaqaaq ay noqonaysaa. Part 1 waa intaas. Part 2 ayaan soo gudbi doonaa insha Allah. Channelka subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.